nabi muuse calayhi salaatu wassalaam ayaa wuxuu yiri waxay tahay ilaahayow iga fogeey hadallada dadka in badan ayay iga hadlayaan, dadka wax badan bay iga sheegayaan, ilaahayow arrintaas iga fogeey. kadib ilaahay ayaa u jawaabay, wuxuu yiri mataqaanaan muusow arrintaas nafsadeeda xitaa maanan ka fogeynin, anigoo abuuray anigoo irsaaqaya ayaa haddana wax iga sheegayaan. dadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayay wax ka sheegeen aniga iyo adiga miyay inoo daahayaan? jawaabtu waxay tahay waa may. adiga ma joojin kartid hadallada dadka, sababtoo ah dadka waxay ka hadlayaan wax quseeya iyo wax aanan qusaynin. hadal wanaagsan maanta haddaad kula hadashid waxay leeyihiin waxay tahay qofkan waa daciif, keligaaga haddaad noqotidna waxay leeyihiin waxay tahay qofkan buufis ayaa haaya. wanaag haddaad u samaysid oo sadaqa aad baxsatidna waxay leeyihiin waxay tahay istustus ayuu u samaynayaa. qofka quruxda badan haddaad isqurxisidna oo dhan qurux badan aad xiratid waxay leeyihiin waxay tahay qofkaas waa fitno. qofka foolxunna waxay leeyihiin waxay tahay waa la imtixaanay. qofka taajirka ah waxay leeyihiin waxay tahay waa baqiil. qofka faqiirka ahna waxay leeyihiin waxay tahay aqoon ma lahan, fursadaha muusan ka faa'iidaysanin. qofka gaabanna waxay leeyihiin wuu gaaban yahay, qofka dheerna waxay leeyihiin waxay tahay wuu dheer yahay, qofka cayilanna waxay leeyihiin wuu cayilan yahay, qofka yacni qaliirka ahna waxay leeyihiin waxay tahay waa qaliir. mar walba dadka waxbay kaa sheegayaan. hadallada dadka ma joojin kartid, adiga yaysan ku joojinin. ku noolow noloshaada, sameey wax walba nafsadaada raali ay ka tahay, waxaa rabtid sameey. dadka ma raali gelin kartid, sababtoo ah ilaahay ayay ka hadleen, nebiyada ayay ka hadleen. dadka ha iska hadlaan, waxay rabaan ha sheegan. noolow noloshaada, ku raaxaysa noloshaada. dadka yacni gadaashaada ha ka hadlaan, waxay rabaan ha sheegan, dhib ma lahan, sababtoo ah adaa hore ah, ayagana waa gadaal ayay jiraan. dadka يعني هذا الله مرنها أو استاجين هل مر أو كلية آيات نوشة سمي وحول بقى جعشة كوا حيسن رشة هذا خوف كل حسابين دون مالت القيام وعذيقة نرشة هذا الحين كجير تجعمها إله سبحانه وتعالى خوف كجنة يناك وجلين دون وإله سبحانه وتعالى عدناها وأبيين سيد ربنا وهدلان يسن أديك سامين رؤوس bishaaro bushoy haddii barashada qur'aanka loo geli jiray safar hadda waxaad ku baranaysaa qur'aanka iyo culumta islaamka adiga oo jooga hoygaaga ama goobtaada shaqo. dugsiga online-ka ee barashada qur'aanka iyo culumta islaamka duruusta uu sida taxanaha u bixinayo waxaa ka mid ah barashada qur'aanka iyo higaada, culumta shareecada, tarbiyada ubadka iyo luqadda carabiga, qiraa'aadka qur'aanka kariimka iyo barashada salaada. isqoristu waa ay socotaa ee wixii faahfaahinaya intaasi dheer kala xiriir telefoonada iyo ciwaanada ku muuqanaya.